sidaan wada ognahay wuxuu leeyahay qeexitaano fara badan markaan dhanka waaqiciga ka fiirino jacaylka waa sida badweynta oo kale oo hirarku hadba ay meel la aadayaan inuu guuleystana waxay u baahan tahay in dadaal badan lagu bixiyo sidii uu guuleysan lahaa waa dareen xoogan oo kuu jiida dhanka ruuxa aad doonayso ay naftu caashaqday haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa macluumaad nafsi ah iyo xaqiiqooyin jacaylka ku saabsan ay habboon tahay in qof kasta wax ka ogaado boqolkiiba 10 ayuuba ku guuleystay inay helaan lamaane ay aaminsan yihiin in guurkoodu ku habboon yahay naftooda oo u qalmo daraasada la sameeyay waxay tilmaamaysaa in lamaanaha mid walba midka kale uu dareenka u hayo uu gaarsiiyo laakiin dumarku si hamuun badan kana galgacayl badan ragga ay ugu muujiyaan dhunkashada subaxii lamaanaha isjecel waxaa dhici karta in qofka ka difaacdo cudurrada qaar dhunkashadaasi waxay dhiirigelinaysaa oo ay soo saaraysaa hormoonaad gooni ah oo keena qofka aanu leecin dhibaatooyinka nolosha daraasada la sameeyay waxaa la ogaaday in dadku xasuustaan inta badan dhacdooyinkii noloshooda saameynta ku lahaa si ka badan dadkii dhacdooyinka qaybta ka lahaa xusuustana la wadaagay markii ay gabadhu ka murgoon weydo dhaqanka aan wanaagsaneyn ilmaanaheeda arrintaas waxay ka dhigan tahay inaan wax dan ah ka lahayn oo qalbigeedu ka saartay markii laba qof isjecel ay indhaha iska eegaan si isku mid ah ayuu garaaca wadnahooda iskula jaan qaadaa waxaa la ogyahay in raggu jacaylku qaadaan si ka dhaqsiyo badan dumarka inaad si mug leh aad u eegto sawirka qofka aad jecesha waxay kaa khafiifinaysaa xanuunka iyo cadaadiska aad xilligaa dareemayso waxaa dad badan ay ogyihiin in lamaanaha isku dabeecadda ah xiriirkooda aan waqti badan sii raagin laakiin lamaanaha kala dabeecadda duwan ay waqti badan isla noolaadaan waxaa dhici karta oo suurtagal ah inuu hal qof oo laba shakhsi mar uu jacayl u wada qaado laakiin si kala awood badan waxaana hubaal ah inuu dhinac u badan yahay ereyga jacaylka dhanka luqadda ingiriiska waxaa laga soo dhambalay luqadda sanskritiyada ee loviati oo macnaheedu yahay doonis wuxuu jirku soo saara hormoonka oxytocin oo ah hormoonka mas-uulka ka ah dareenka jacaylka ee aadanaha hormoonkani walwalka ayuu hoos u dhigaa qofka markuu jacayl ku dhaco wuxuu la mid yahay sida qof qatimay daroogada kokaayinta labadoodaba si isku mid ah ay u sameeyaan dareemayaasha aadanaha waa sida daraasad la sameeyay lagu ogaaday inaad jacayl qaado waxay u baahan tahay 4 saacadood oo qura waa xaqiiq sugan oo la ogaado waana muddo ku filan inaad qof jacayl ku abuurto adunuhu wuxuu qof jacayl u qaadaa xilliga qatarta si ka badan xilliyada kale caadiga ah wali ma isweydiisay sababtu qof si la yaab leh ugu dhaqmo oo aqligiisa oo qalbigiisu ka awood badan yahay taasi qaladkiisa maaha waa saameynta kiimikada ee cilmi ahaan loo yaqaano crystal kadib joonow dadka aad sida joogtada u eegto midkood ayaa jacayl u qaadi kartaa waa markaad indhaha si joogta ugu eegto waxaa la yidhaahdaa farta afaraad ee gacanta bidix waa tan mas-uulka ka ah fiina amoris ee halbowlaha jacaylka ka oo la aaminsan yahay inuu la xiriirsan yahay wadnaha qofka markuu doonayo inuu galo xiriir jacayl oo waqti dheer ah wuxuu eegaa oo tixgelin siiyaa wejiga si ka badan xubnaha kale ee jirka taa ka dhigan inay tixgeliyaan wejiga quruxda badan ee aan dadka ka lahayn xubnaha kale ee jirka dumarka intooda badan waxay jacayl u qaadaan ninka caqliga badan caqliga waxay ka qiimeeyaan heerka kaftanka uu qofku leeyahay sida uga qoslin karo jacaylka qiimaha badan waa kan leh rabitaan xoogan sugnaashiyo iyo daacadnimo waana 3 xagalka tiroojika jacaylka